waxaan ahaa shaqaale nadaafadeed weligii caruurteeda uma sheegin wax aan ka shaqeeyo waayo ma rabin inay niyad jabaan markay gabadhayda yar i weydiiso shaqadayda waxaan si quus ah u sheegi jiray inaan ka shaqeeyo farsamada gacanta galabtii marka aan shaqada ka rawaxayo waan qubaysan jiray si aysan caruurteeda iiga fahmin shaqadayda gabdhahayga iskuul ayaan geeyay si ay wax u bartaan oo dadka sharaf iyo karaamo ugu dhexnoolaadaan waayo ma rabin in loo bahdilo sida aniga oo kale waxaan keydiyay kun kasta oo isoo galay si aan gabdhahayga wax ugu baro weligay ma iibsan shaati cusub ee waxaan u gadi jiray buugaag iyo wax ay wax ku baran lahaayeen doonadayda ayaa iskuulka soo dhameysay hal maalin ayaana ka dhiman maalinta ay xirmayso isdiiwaangelinta jaamacadda ma hayo lacag aan ku diiwaangeliyo maalintaasi murugo iyo quus ayaan la shaqayn kari waayay waxaan ag fariistay sanduuqa qashinka ilin ayaana iga da'aysay waxaana isku dayay inaan qariyo waan niyad jabsanahay waayo ma hayo waxaan caaw ugu jawaabo gabadhayda markii aan guriga ku laabto oo ay weydiisay lacagtii bari ay iskaga diiwaangelin lahayd jaamacadda waxa halkaasi iigu yimid saaxiibadeeda shaqada qaar baa ogaa walwalka i haystay dhinacyadeeda ayay soo fariisteen waxayna igu dhaheen ha murugoonin annaga ayaa ku garab taagan waxayna i siiyeen joornaatigii ay maalintaasi shaqaysteen oo ay iska soo aruuriyeen waan ka yara diiday balse igama aqbalin waxayna igu yiraahdeen dib ma laha in maanta kaliya aan gaajoono ayaa ka dooranay in curadaada bari jaamacadda iska diiwaangeliso waan ka qaatay waana ugu mahadceliyay weliba si saayid ah maalintaasi ma marin musqushii aan ka sii qubaysan jiray intii aan shaqada ka bixin waxaan guriga tagay anigoo faraxsan oo ay iga muuqato daalkii iyo wasaqdii shaqada nasiib wanaag maanta curadayda waxay ku jirtaa sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda wayna shaqaysaa oo nolosha qoyska maanta iyada ayay ku tiirsan tahay aniga shaqada way iga fariisisay saddexda gabdhood ee kalena jaamacadda ayay noo dhigtaan alla mahadi iyada ayaa ka bixisa marmarka qaar ayay curadayda gaarigeeda iigu qaadaa shaqadeedii hore ayayna i geysaa waxaana la soo qadeynaa saaxiibadeedii shaqada anigoo qado hore ugu sii qaadna midkood ayaa maalin igu yiri oo maxaad isku dhibtaan oo qadada noogu keentaan gabadhayda ayaa ugu jawaabtay ma hilmaamin abaalna waan idinkaga hayaa maalintii aad dartay u gaajooteen si aan u gaaro heerka aan maanta joogo alla mahadi maanta ma dareemayay in aan faqiir ahay sidee ayaan saboolnimo u dareemi karaa aniga oo haysta gabdhahaygan weliba iyagoo wax bartay iyana shaqeynaya gabar wax barata waa bulsho wax barata waxaana ku tiirsan hooyooyinkood aabahood walaalahood iyo qoysaskooda iyo weliba dad kale oo ay wax taraan waa sheekada aabo ku nool dalka India kaas oo ka sheekeynaya qiimaha ay leedahay in gabdhahaaga aad wax bartid isagoo tilmaamay in saboolnimo ay kuugu dambeyso maalintay gabadhaadi ku shaqo bilowdo